timid dhul dheer South Westiga waa lajankooda gudoomiyahoodan waa jooga gaagaale Sefey iyo gacal waxaan leenahay welcome Wembley soo dhawaada baloonigan waa isdhaxgalka arrimaha bulshada waa wax oo dabiici ah howl yarisna oo wadna hawshan marka walaalaheena waxaan leeyahay mar walba gacmo furan ku soo dhawaada magaaladiina waaye TV-ga walaalkeen say no more waxaan soo dhaweynaynaa sida uu gudoomiye hore u sheegay walaalkeen dacar oo nooga yimid wadankii hooyo haddii aan baxda saaib carar FC-na maanta waxaan kulan isla leenahay walaalaheen Wembley waa kaasa marka waxaan u mahad celinayaa reer Streatham sida isugu xirantihiin ma sha Allah maanta waa soo duusheen يا لما كان ما شاء الله قال له نصعد ما شاء الله هرت مكو ورس waxaan leeyahay kale walaalkay dacar runtii shakhsi aad noogu weyn waaye runtii oo de abaalkiisa aan la gudi karin qof walba wadanka tagan si ugu soo dhaweeyo halkaan wuxuu ka qabto ogsoonahay marka dacar waxaan leenahay insha Allah naga siiyay anagana soo socona insha Allah oo ku sigeynaa insha Allah oo ku iman doona marka soo dhawow waxa waaye magaaladaadii waaye ya laakiin walaalkay Mustafa iyo Cabdi Axmed gudoomiye dad aad u soo shaqeyn wax badan joogin ilaa haddana uga shaqeyno hadiyada uga mahadcelinaa waxaan u mahadcelinaa walaalahay South Westiga meesha aan uga tagay dadka ka qaaday sportska ha ahaadaan walaalkay gudoomiyaheena macalinkeena sarkaa gaale kabtan gacal walaalkay Sefey Cabdi Xirso Baleer aad fiican ah dhamaantood aad u mahadcelinaa yani xifaaltan waa iska jiray وانا كي ومبلي نيجا دحي جري حفلتك سيديسو انا وسبورتس اسدحق بشواي marka meeshada joogaysa ana badinaay waxa horta had weyn ilaaha iskale ka soo saymo ni aad u maadsanaatay aadan ku la xiriiraa waxa kaliya aan kala xiriirno London ama South ka noqoto oo London saxaafadaada waa nin walaal qaaliya ta aad kuugu mahad celinaa haddana waxa leeyahay gudoomiye saaxiib halka ku jooga bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan asxaabta waan wada salaamay meesha waxa ka salaamay say no more waxa kale meesha ka salaamay dhamaan Wembley oo maanta ciyaar saaxiibtinimo u sameeyeen gacal oo Soomaaliya noogu yimid oo welcome u sameeyeen gudoomiyaha dacar marka dhamaan asxaab العرر meel kasta joogtiin waan wada salaamay waxay ag taagan macallinkeyga waxaan leenahay saaxiibkeen walaalkeen gudoomiyaheena dacar soo dhaw London soo dhaw mar labaad mar saddexaad Wembley FC iyo Streatham saaxiib العرر game kul ayaa meesha ka dhici doona waxaan leenahay daawasho wacan aad iyo aad kaaga mahad celinaa thank you very much marka xigta galabta waxaan joognaa anaga matalayna kooxda Streatham FC oo noo hogaamiyahayo macalimo Cabdullaahi Cumar Gaagaale kooxda saaxiib العرر oo wato waxaan joognaa Wembley waxaan u buuxoonaa reer Wembley waxaan ka helnaa martiqaad aad iyo aad u qurux badan adigana waan ugu soo dhaweysay natiijada hadda 3-1 waaye waxa gacan sareysa kooxda saaxiib العرر oo hogaamiyahayo macalimo Cabdullaahi Cumar Gaagaale marka dhowr mar isku dayna inaan reer Wembley dhibca ka qaadano laakiin maanta waxay u muuqataa inaan dhinacooda dhulka dhigi doono insha Allah waxay la soo dhaweystaa gudoomiyaha Cabdiqaadir aad iyo aad kulanka mid kale waxa waaye waxa lagu maamuusayaa soo dhaweynta Cabdiqaadir Muxudiin Dacar saaxiibkay Dacar waxaan leeyahay soo dhawow anaga haddaan nahay reer Streatham horaan ugu sameeyay soo dhaweyn maadaama Legend Sports yahay maanta reer Wembley u sameeyayaan sports waa waxa kaliya ee dhalinyarada hadda isku hayo qurba joogta oo adiga ugu horeyso say sports waxaan ku leeyahay aad iyo aad u maasantahay sharaf ciise iyo tahay ina maanta ka soo muuqdo media hada aad iyo aad u maasantahay brotherkay
hadda joogaysa anaa badinaya waxaa horta hadda weyn ilaaha iskale ka sugo saymo in aad iyo aad u mahadsanaa tahay aadan kula xiriiraa waxaa keliya aan kala xiriirnaa London ama South Canada oo London saxaafadaada waa walaal qaaliya tahay aad iyo aad ugu mahadcelinahay haddana